qof waliba oo Soomaaliya waxaa mas'uuliyad ay ka saaran tahay in aysan isku fiirsanin xalufinta dhirta iyo nabad guurka deegaanada sababtoo waxa wadanka halis ku ah bacad ayaa halis ku ah bacadaasna waxa lagu hortagi karaa in aan samayno dhir inaan samayno tusaale hadda ku soo qaato waxaa jirta dalka Burkina Faso nin la yiraahdo Yaqub wuxuu markuu arkay deegaankiisii in uu saxaro isku bedelayo ayuu istaagay kaligiisa markuu wuxuu abuuray in milyan geedo ka bacdi bulshada kale ayaa garab istaagtay oo la qabtay waxaa loo tirinayay inuu yahay wadanka saxaraha inuu yahay laakiin nature maanta waxay ka mid noqonaysaa inay green noqoto ayay ka mid noqonaysaa maalin waxaa lagu soo qaatay journalkan la yiraahdo National Geographic ayaa lagu soo qaatay oo ah nin la yiraahdo Ali Nino ayaa wuxuu u bilaabay nature inuu abuuro 220 ama 200 milyan oo geedo inuu abuuro ayay noqotay marka maanta hadaa fiiriso dadka nature hadaa fiiriso waxay ku najexeen markay u istaageen isku garabsiiyeen in deegaanadooda ay dhir ku abuuraan ayay noqotay maanta nature hadda waxaa lagu tirinayaa meeshii saxaro ay ahaan jirtay 10 sano ka hor maanta inay tahay nature meel oo green inay tahay ayaa soo baxday marka annaga Soomaali ahaana waxaan aaminsanahay dad badan inay awoodi karaan waxa ay gaareen nature ay gaareen waxa ay Burkina Faso oo Yaqub ka sameeyay ay awoodaan ajira sababtoo ah wadankan dhalinyaro ayuu leeyahay waxa dadka lagu tashadana waxay dhalinyarada ay tahay marka waa la awoodaa qof walba meesha uu joogo in uusan ku fiirsan dawladda kaligeeda balse ay u istaagaan ay mas'uuliyad ay saaraan inay geedo abuuraan inay ilaalsadaan intay ka qoraan ayaa la rabaa si ay iyaga iyo jiilka galan doonaan ay deegaanadooda ay wax badan ay kaga bedelaan barnaamijka oo bisha cagaaran ama ha noqoto midda Soomaalida cagaaran mar walba waxaan u taaganahay in aan wax ka bedelno oo ah qof walba oo Soomaali inuu heli karo meel uu dhir u soo doonto oo dhirka nooca uu rabo haddii noqoto deegaankiisa uu joogo inuu yahay roobka inuu ku yar yahay in uu heli karo geedo oo ah in uu geedahaas oo cimiladiisii iyo deegaankiisii ay wax badan ay ka bedeli karaan inuu heli karo ayaan rajaynaynaa in aan geedaha aan siin doono aan mar walba ku cabiri doono deegaanka uu qofkaas u degan yahay laakiin shaqada kaligeena ma qaban karno haddii bulshada Soomaaliyeed aysan garab istaagin ama aan support ayna siinin kaligeena ma istaajin karno laakiin marka anagana isku imaano waxaan nii xaqiijinaynaa inuu miro dhali doono hadduu Ilaahay ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وعن أول أحسن من الوضع عالم كجوكتان هالكني وشافي ميديا أنا وأنا شافي عيشي على أونستي شرف أي نوتها داوديال سيد ونحسن برنامج شدنا على أول صوتان ونذيكم هذا عندنا وقتي غالي على سيسان حلقة أنا داونسان أنا برنامج كنا وحنا جعلنا هذه داوديال إن أنا ما أنت عم قاعد نجنو هذا وقار هراء وسيش شيء مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود oo ahaa in Soomaaliya ay u baahan tahay in la dhigayo taasoo ah mid aad u muhiim ah dadka iyo dalka ay u baahan yihiin haddaba tan iyo xilliga madaxweynaha uu ku dhawaaqay maanan arkin cid si gooni ah arintaasi isku xilqaamaysa ee doonaysa inay ka shaqeyso waxaa jira shakhsiyaad qaas ah oo aan ku soo qaadan doona barnaamijka hadduu Ilaahay yiraahdo inta aan ku gudi jirno bal marka hore waxaan rabnaa bal inaan isla garanno dhireynta ama in la dhireeyo dalka Soomaaliya waxay faa'iido ah ay u leedahay dalka ma dalka ay dan ugu jirtaa ma dadka ku nool dalka ay dad ugu jirtaa mise dhulka naftiisa ayaa u baahan in la dhireeyo oo danta ay ugu jirtaa dhammaan qodobadaas ayaan jecelnahay inaan daawadayaal aan barnaamijkeena aan ku qaadan dhigno alaaba barnaamijkeena waxaanu isla eegnaa saaxiibka Qoryooley oo ah nin ku takhasusay dhankaasi beeraha iyo waliba qaabka geedaha loo kobciyo qoryooley soo marka hore barnaamijka shaafi waa dhawahay sida aan socono barnaamijkeena waxaan rabnaa maanta inaan isla eegno madaxweynaha Soomaaliya yaa ku dhawaaqay horaantii xilliga doorashadiisaba in Soomaaliya ay u baahan tahay in la dhireeyo oo wali jeedo waxay u baahan tahay in cagaar laga dhigo مثلا صعدنا صدق كيسنا وجود بين ذلك الدجال يا كصعدي
dhul in la direeyo iska daaway dadkii ayaaba macnaha maaragtay iskood u qalalabay ya oo dadkii ka guurayay marka bal horta marka hore aan isla garanno direynta madaxweynaha uu ku dhawaaqay qaab noocee ayaad u aragtay horta shaaficiyo waa shay horta laga soo daaha waay aad iyo aad waxaa jirta qorsho UN-ta qaybtan environmentka UNEP oo la yiraahdo oo diyaariyeen 2021kii ayaa waxay yiraahdeen dal walbo from 2021 ilaa 2030 waa muddo 10 sano muddadan 10 sano marka waxaa loogu talagalay wadan walba inuu malaayiin dhir uu abuuro ay tahay sababta ay dhahaan waxay tahay waxay kaga hortagayaan environmentigan iyo nabad guurka carrada ku dhacayso iyo geedaha la jarayo oo kale waxaas ayaa loogu talagalay marka doodaha oo waxay yihiin oo taagan mar walba ayay tahay oo ah in cimilada ay kululaanayso marka waxaa la rabaa wadan walba inuu geedaha abuuro sababta waxaa keenaysa waxay tahay dadkii waxay gureen dhirta ayay gureen haddii dhirta ay la gurana then waxaa waay toos waxay noqonaysaa waxaan la yidhahda CO2ga iyo maaragtay sababta waxaa geedaha waxay keenaan waxayna siiyaan aniga oxygen ayna siiyaan hawayna siiyaan iyagana waxay ay celinayaan maxaa la dhahaya CO2gaas ayay celinayaan marka waa anaga Soomaali ahaan ama nidaam dawlad ahaan waa laga soo daahay from 2021kii ilaa 2020 maanta waxaan maroonaa 2023 ayaa maroonaa marka waxay tahay muddo oo 10 sano marka madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay ama uu yiri waxaa la rabaa 10 milyan oo geed in la abuuro ayaa la rabaa 10 milyan oo geed yes waa gartay marka laakiin barnaamijka sida uu socdaa waxay tahay in 10 milyan dhir la abuuro weli waxay tahay waa shay aad u gaaban ayay tahay oo ama wax la yiraahdo in ay si dhaqso ah dadkii ay ku howlgalaan sidee loo abuuray geedo noocay ayaa la abuuray hadda fiir Soomaaliya badan waxaa haysato dhibaato oo ah bacaad ayaa haystaan sababtoo ah bacaadku wuxuu ka imaanaya xeebta ayuu ka imaanaya dadka hadda oo degan dhulka xeebaha degan waa meelaha oo dugmi rabanaya haddana way dugmi raban kaliya maaha practical waxaa loo hayaa magaalooyin waxaa jiraan sida hadda oo Kulub iyo Dinowda la dhahayo ay ka tirsan yihiin mudug automatically bacaad ayaa dugay hadda fiiris hobby hadda fiiris maanta iyadoo sidoo kale waxa waay in maybe next 10 to 15 years waxa dhici karto hobby dama inay jirin ay noqoto magaalooyin sida kale oo sida Kulub iyo Dinowda ee u duumay inay u duumi doonto marka waa magaalooyin mudug ku yaal meeshaas labadaas meelood mudug ay ka tirsan yihiin waa magaalooyin weyn waa magaalooyin adiga aarano weyn inta degan population han dadka laakiin ma ogi laakiin waa meelaha practical hadda loo hayo waxa kamid ah hobby ayaa kamid ah waxa kamid ah cadala iyo baadiyaha cadala magaalooyin waxa jiraan oo hadda bacaadka ku sii siqay ayaa jira marka the whole point ee arab inaa sheego waxay tahay dadka Soomaalida ilaa hadda aad ay ugu gaabeen inay fahmaan in loo istaago waa laga gaabiyay marka gaabitaankaas waxay tahay dadka naftigooda magaalada degan xataa waxa way kuma baraarugsan oo waxay u jeedaan every 5 to 10 years waxa leedahay bacaadka intaas oo centimeter ayuu gaarayaa heer wuxuu gaaray bacaadka inuu ka sara maro guryaha aad ay dhisiin ayay gaareen marka that means waxa way haddii loo dhaho bacaadkaas waa la xaaqiya waxay u baahan tahay waqti iyo energy iyo lacago iyo shaqaalo badan ayay u baahan yihiin sababtoo ah maanta hadda aragto gurigan maanta ku jiro hadduu bacaad ka kor maro magaalo dhan ayaa dhibaatada leedahay aad iyo aad yes marka dataas isla garanay madaxweynaha uu ku dhawaaqay waxaa jira horta dhireentani ma dadka ay dan ugu jirtaa ma dalka ay dan ugu jirtaa mise dhulka naftirkiisa ay dan ku jirtaa okay dhireento waxay dan ugu jirtaa dadkan dan ay ugu jirtaa caradana dan ay ugu jirtaa xoolahana dan ugu jirtaa marka wax kala maarmo kala jirto sababtoo ah dadka waxay u baahan yihiin oxygen ka soo koob dadka waxay quutaan wax walba oo carrada ka soo baxay quutaan haddii ay noqoto carrada ay noqoto meel geeda lahayn carrada waxa ku dhaco wax la yiraahdo way nabad guuraan oo waxa ku dhaco nabad guur ayaa ku dhaco then hadda fiiris carrada naftigeeda waxa ku nool cayayaan oo wax tar u leh dhirta oo microbiome ayaa then haddii uusan jirin marka geedo uusan jirin oo geedahaas haddaysan jirin marka waxay noqonaysaa carrada waxaa ka guurayo nafaqadii ama nutrientkii iyo waxaa ka guurayaan waxaa la yiraahdo cayayaankii loogu talagalay oo carradaas iyo geedka ay quwad siinaysa maaragta ayaa iyadana ka guuraysa marka tan marka waxay keenaysaa marka dadkii waxay dan ku qabaan geedihi ku qabaan xoolihii geedihi ku qabaan dalkana waxay u tahay waa meelihii ay qurxin lahayd waay marka
wadan hadduusan dhir uusan lahayn waxay noqonaysaa waa wadan laisku diyaarinayo in dadka deegaanka ama dadka deegaanba inay ka guuri doonaan. waan gartay isla garanay madaxweynaha inuu ku dhawaaqo dhirinta dalka si fiican inta 10 kun oo geerna sheegtay inuu doonayo in 10 milyan geed 10 milyan oo geed in la abuuro. yes dhanka kale hadda madaxweynahana iyo dowladdu ma ku dhawaaqeen waxaa socdo xaalufin dhanka dhirtan ay socotaa oo dhuxushii ayaa wadankii geedihii waa la jarayaa waa la gubayaa shaqaalo intaas waa ka howlgalaan dekedihii ayaa laga dhoofiyaa wadamada carabta ayaa la geeyaa marka dhan kale ku dhawaaqitaanka in lagu dhawaaqo in wax la abuuro dhan kale dowladdu maysa sheegin laakiin in loo baahan yahay in laga hortago xaalufinta naftirkeeda. absolute theory horta ma jiro sharci waxay ahayd nidaam sharci in la keeno baarlamaanka laga inaan dhir la jari karin at the same time haddana dhibaato waxay ka taaganta waxay tahay dalka maaha wadan wada gaas lehna maaha then halkaas markii dadku waxay shitaan dhuxul ay shitaan dhuxushuna waxay ka imaanaysaa geedihi ay ka imaanaysaa so marka haddii aan rabno inaan joojino dadka in aysan geeda jaranin then dadku waa inay helaan farsamo kale oo ah booska dhuxusha uu gali lahaa waay then taas marka waxay keenaysaa marka especially dadka baadiyaha degan aan awoodin ama dadka danyarta aan awoodin then waa inay heli karaan farsamo hadday noqoto oo ah waxaan loo yaqaano biogaska loo yaqaano ama biogaska means waxaa waaye hadda fiiri million qashin ayuu guri walba daadiyaa ama hoteelada million qashin ay daadiyaan then qashinkaas oo kale in meel loo sameeyo oo laga dhaliyo gas laga dhaliyo haddana dadkii ay heli karaan gas nin walba gurigiisa usoo gali kara gaaskaas ama xaafada ha noqdaan hadday doonaanba ama ha noqdaan dadka baadiyaha joogan oo iyaga loo baahan yahay in ay kaga faa'iidaystaan xoolaha ay haystaan in ay u isticmaali karaan degadooda ay u isticmaali karaan inay ka dhashtaan gas inay ka dhashtaan ama in gas laga dhaliyo ee raashinkooda ay ku karsan karaan then haddana at the same time wasaqdaasi oo markay ka dhamaystaan gaaska naftigiisii oo degadii naftigooda ka bacda inay qaataan ee haddana ay ku bacrimisadaan dhulkooda oo ah si uu dhulku haddana nafaqo u keeno sababta waxaa waaye waxyaabaha oo badana oo beeraha iyo ama dhulka ama carada ka guuraya waxay tahay wax la yiraahdo organic matter la yiraahdo organic matter means waxaa waaye waa wax dhan isku daray oo carada ay tahay waaye organic matter carada waxay ka tahay 5% ayay ka tahay haddana 5% gaas haddiisna carada ku jira then waxay noqonaysaa geedkaas ma dhali karo oo ma keena anfaci uu rabay ma keena sababta waxaa waaye wax walba aniga aan cunno waxay ka imaanaysaa carada ayay ka imaanaysaa nafaqooyinka jirkeena u baahan tahay waa nafaqooyinka aan ka helayna true geedka aan cunayno ayaan ka helayna then haddii carada ay haddii xataa once minute wax la yiraahdo boron ama iodine ama la yiraahdo magnesium ama sulfur ama nitrogen haddii intaba ay ka maqan tahay carada 1 minute uu ka maqan yahay then waxaa waa qofka bilaadanka raashinka uu cuno jirkiisa ayaa waxaa laga garanaya waxaa maqlaysa qof hebel waxaa ka maqan iodine ama zinc ayaa ka maqan maqlaysa ama sulfur ama magnesium qofkan jirkiisa ka maqan waxaan marka waxaa jirta waxa aniga aan ka heli lahayn true carada naftigeeda ayay tahay then marka waxay tahay haddii carada aysan nafaqa aysan lahayn that means waxa waa dhirta ay dhalaysa ama waxa aan cunayno iyadan nafaqa nooma laha waa haddaba waa tahay laakiin midas la fahana tan dhoofinta dadka baadiyaha jooga iyo meelaha fog jooga remoodka ah tuulooyinka jooga kalanto inay isticmaalaan in la gaarsiiyo alaabahan aad ka hadlaysa ama qalabkan waqti badan ay qaadanaysaa laakiin dhoofitaanka in la dhoofiyo oo wixii haddana anaga aan lacag ka raadino wadama u iibgeyno soo halis kuma haddana dhulka iyo deegaanka waa waxyaabaha ay tahay waay horta waxaa jirto nin oo philosopher wuxuu leeyahay qofku wuxuu wax ka walwalaa markuu wax qalbada ku hayo that means in aniga dalkan aan leenahay aan dalka aan lahayn qalbada kuma hayo so maanta si walba aan u xalufinayo wadankan xanuun iguma haysaaniyo sababta wax waliba aad ka walwalaysaa marka aad qalbadaada wax ku haysat ayaa ka walwalaysaa laakiin haddii qalbadeena aysan ku jirin inuusan dalkan aniga leenahay in aan wadan kale aan haysanin haddaan wadankan aan ilaalsanin then that means waxa wadan dhan waxa xataa aan dabagedino xanuun iyo kurban uguma haysa anaga marka daas isoo qofku wuxuu wax ilaaliyaa waa marka adiga shayga aad fahmad u leedahay marka waxaan ka gaaban waxay tahay fahmadii oo noloshii oo ahayd oo ah inaan waxaan si caam ayaan u wada leenahay haddii magaaladan ay dugmatana waxay ka dugmatay anaga naga dugmatay iyo ilmahana ayay ka dugmatay because waxay tahay
waxay yihiin wax isku qori isku dhib ayay tahay waa fahamsan meesha adiga aad ku dhalatay ama aad ku gaartay 16 sano mar walba maskaxdaada kala duwanayso marka hadaa usoo laabta pointiga ay ahayd xaluufinta la xaluufina waxay tahay dhir okay siyaabo badan dhirta qofka loo hadda meelaha hadda waa la jaraa geedaha laakiin dadku waxaa loo tababaray maaha geed karan inay jaraan maaha geedaha meelaha waxaa jiraan laamo oo dadka Englishka ama dadka beeraleyda waxay yiraahdaan pruning ayay yiraahdaan pruning means waxa waaye laamo aan loo baahnayn kuwaas ayay jaraan si aysan geed karan aysan u jarin sama secondly ma xumo geedkii adiga waa jaraysa laakiin annaga geed kuma bedelno so kii taagna naftiisa ayaan jaroonaa then waxaan ku bedelnaa male marka waxaan ka wada shaqeynaynaa in dalkan la xaluufiyo oo baabao ay dadkii ay noqdaan dad waxba beeranayn inay noqdaan inaan ku tiirsanaano mucaawino inaan ku tiirsano for how long uu qofkan maanta how mucaawinimo uu ku tiirsanaan kara ma jirto waa fahamsan laakiin dadkii waxay tahay waxa laga gaabiyay aan aniga ahaantay personal isla waxay tahay wacyigelinta dadka la wacyigelin lahaa in ay helaan ama waxbarashada laba waa mid waxay tahay qofkan wacyigelinta joogtada la siinayo ama diinta loo soo maro ama si kale loo soo maro in qofkan la fahansiiyo war waxa aad jarays waxay tahay waa wax adiga berita halis kuga oo halis ku yihiin generation ama ciyaalka manjuga ama kuwa dhalan doono ee halis ku yihiin waay marka faham gaaban ayaa jira ama sharciyan xataa haddii la dhaxta geed yaa la jarin waxaa la rabaa inay jirto wixii sharci inay hadda waddankan aan ujeedo maarata ma jari kartid geed ma jari kartid dalka Jarmalka haddaa fiirisa from magaalada to baadiyaha Jarmalka haddaa fiirisa geed walba wuxuu leeyahay number ayuu leeyahay geedaa number lahayn ma jirto waa tirakoobay geed walba waa la cilaamaday waxaa loo cilaamaday marka waxaa is leedahay geedkan waxaa la ogyahay goortuu dhashtaa la ogyahay inuu jiran yahay inuusan jirnanayo dhirta way jirataa waa fahamsan marka annaga laakiin welito waxaa jirto fahamkiyani oo ahaa muhiimadda ay dhirta ay dalka u leedahay ayaa welito waxay tahay mid aad u gaabsan waxaan rabaa inaan ku sheego maalin nin waxaa la hadlaayay oo madax ayaa la hadlaayay soomaalida marka dhirta mucaawin waxaan ugu keenaysa gaaladan ugu keenaysa si logic ahaan wuxuu wax ka qabaa in mucaawin ahaan dhir noolagu keeno which is waa la keena actually maalin waxaan dowladda jaamacad la yiraahdo Peace University waxay dowladda Soomaaliya ay ku caawisay 100,000 oo geed oo ah oo laga keenay dalka Kenya diyaarada ugu soo qaaday ayaa la keenay 100 geed marka waxaa kamid ah geedaha Soomaalida waddanka yaalo waxaa kamid ah sida shawriga ayaa kamid ah waxaa kamid ah beedaanka geedka la dhaho maaragtay ayaa kamid ah marka waa isweydiinaysaa marka weel shawri waddanku waa yaala beedaan uu yaala yes ma tiro badno ama laguma sameyn in la badiyo laguma sameyn so marka waxaan ogolaanay marka oo ah inaan isdhibin inaan waxba qabanin in wax walba noolo keeno ayaa noqonay but for how long geed lagu keeni karaa marka geedku waxay tahay dhalinyaro badan waxaa jira Soomaaliya oo beeraha barteen jiraan dhalinyaro badan waxaa jiraan oo barteen waddanka joogaan ayaa jiraan halkii la rabay dhalinyarada in mobilization lagu sameeyo oo ah laga faa'iideysto xoogooda si mutadawacnimo haddii xataa kharash loo haydo ama mutadawacnimo loogu faa'iideysto kadibna loo sameeyo in dowladda facility ay siiso dhirtaas in dalka lagu badiyo dalka lagu hagaajiyo ayay yahay laakiin still waxaa leedahay waxaa jirta faham dari ama gaabsi ayaa xagga ka jirta ayaan isleeyahay haddaa marka aan bal dhanka fahamka kusii jirnaa moogtahay Soomaaliya xilliga dowladda dhacday ilaa hadda waa waqti dheer oo generation hadda inta badan joogo waxay la jaan qaadeen dowlad la'aantii rabshadihii qixii ma ahayn dad oo la kulmay dhulkii oo la qurxinaya macnaha maartay bacad celintii oo macnaha maartay bacadkii oo la habeynaya webiyadii oo xilligii la gaaro xilliga webiyada markii guraan koranto waa nadiifin jiray si macnaha maartay qashinka laga xaaqi jiray si aysan fatahaad u sameynin wax walba waxay ku socdeen qaab nidaameysan ku socdeen marka dadkii lama qabsan oo dad ma ahan aqoon fiican u leh bas leedahay iskuullada lagu dhigo waddanka lagu dhigo in lagu soo kordhiyo maado noocaas ah way wanaagsanaadaa xilligan fiiri horta mid waa horta iskuullada horta ma jirto maado la dhaho school oo baraayo agriculture oo baraayo ama sida dugsi dhexe oo kale iyo dugsi sare oo kale waxay ahaan lahayd qasab waxay ahayd maadada agriculture in lagu soo daro which is uma maleynayo ma jirto ardayga waxaa ugu horeysa markuu jaamacad uu tago inuu beeraha barto ayaa ugu horeysa laakiin automatically waxay tahay ardayga markuu class 1 uu tago ama markuu xanaanada uu tago wax loo yaqaan reception ama kindergarten loo yaqaan marka uu tago ayaa waxay tahay ciyaalka waxaa la baraa geedaha la baraa muhiimadda ay tahay
waddanka aan joogno ama even xataa markaan africa ardayna aan ahanay cunuga markuu dugsi dhex yaro waxaa la baraa geedka la baraya ilmaha hadda meeshan kindergartenka marka iskuulka 3 sano ay jiraan waxay kula imaanayaan geeday wadaan geeday iskuul kusoo sameyn geeday abuureen geedka abuuraa lasoo siiyaa ilmaha that means waxaa cunugaas waxaa lagu program gareynaya in geedka uu muhiim yahay ilmaha marka waxaa la baray inuusan geedka jari karin ayaa la baray marka anaga marka Soomaaliya maadaama wixii dowladnimadii wiilita iska soo jiitamayso iyo xataa it's not only kili dowladnimo dad muslim aan oo dhirto waxaa lagu sheegay quraanka intaan hadda ogahay quraanka marka waxaa ku jirta 54 geed ku jirto so ilaahay wuxuuna barayaa hadda fiir romance marka lagu dhaho jannada waxaa ku yaala geedo romance ku yaala adduunka lagu baray ma fahamsan quraanka uu ku sheegay laakiin automatically waxaana la barayaa in jannada ay tahay meel qurxoon ee wabi leedahay geedo leedahay laakiin haddii la dhihi lahaa jannada waxay waay meel kuleel badan oo qorax kuleel badan naartana waxay tahay meel qabow badan oo geedo wabiyaal dhex maray qof walba wuxuu dhihi lahaa aniga ma rabo naarta jannada ma rabo naarta raba ayuu dhihi lahaa marka that is waxay tahay qofka bini'aadamka waxaa ilaahay uuna barayaa waxa uu qofka jannada kaga horeeyo ee automatically adduunka lagu baray that's all means waxay tahay in muhiimadda ay dhirta ay noo leedahay ayaana la fahansiin waa inaa ilaalin xadiis nafteeda waxaa jirta lagu leeyahay xataa hadday qiyaamada dhacayso geed ahays waxay ku qasbantay inaa geedkaas aad taasha ayaa ku qasban marka fahamkaas good waxaan leeyahay even fahamkii diinta ahaa oo dadkii soomaalinimadii islaamnimadii culumadii gaab weyn waxaa jira oo ah in aan sida saxda ah aan u fikirin ayaa laga wada gaabay marka waxaad leedahay bulshada marka waxa waaye bulshada xaq dawladeed xaq culamo aqoonyahan ha noqoto waxgarad ha noqoto nin mas'uul ah ha noqoto waxa haddana ceeb si qof mas'uul inuu ku yahay waxaan oo la keenaa dhir mucaawina oo la keenaa okay marka gacmaha aan saarane aan fiirin goortana soo gaaraysa for the time I saw is 10 years ago qaadana geedka intuu 10 years oo la ekaanaya geed weyn uu noqonaya mi fadorta laakiin in that kind of logic inaan u fikirno ayaa waxay ku tusaysaa halka maanta aad joogno oo ah ninka hoggaanka fikirkiisa inuu liito ayay noqonaysaa marka hoggaanka haddii fikirkiisa uu liitana waxaa waaye si qaldan hadduu fikiraan shacbiga si qaldan ay u fikirayaan always waxaa waaye hoggaanka siduu u fikiro ayaa tahay sababta waxaa waaye hoggaanka wuxuu waa transmitter wax la yiraahdo wuxuu gudbinaya information ayuu gudbinaya information wuxuu gudbinaya dadka ku hareersan iyo dadka si hoose ayaa marka even marka adiga positive aad gudbinaysid then dadka waxay qaadanayaan wax positive ay gudbinayaan okay laakiin adigoo hoggaankii ee marka negative gudbisid waxa kugu hareersan ayagana waxay sii gudbinayaan negative ay sii gudbinayaan laakiin dhan kale markaan fiirino hadda ku dhawaaqitaanka xilliga madaxweynaha ku dhawaaqay oo ra'iisul wasaarahuna sii tacliiqiyay waxaad moodaa maalintii la hadlin hadalkaas u dambeeyay fiiri it's not about horta hay'adaha jirta horta madaxweynaha keli maaha hay'ad waxaa jirta liyada environmentalka ayaa jirta oo ah ku shuqle environmental hay'ad kale waxaa jirta oo la yiraahdo beeraha wasaaradda dhan jirta wasaaradda beeraha iyo wasaaradda environmental ayay labada okay laba shaqay ay kala leeyihiin midna waxay qusaysaa environmental ayay qusaysaa oo ah hadda tusaale okay waa ugu maanaya midda beeraha let's talk midaan environmentalka oo iyada environmentalka marka waxay tahay horta waa inay sameeyaan survey oo ah intee waay dhibka intuu ka tahay bacaadka wuxuu ka imaanaa badda ayuu ka imaanaa soo ma okay sidee bacaadkan oo badda keenaysa magaalada keenaysa sidee loo joojin karaa sidee looga hortagi karaa waa dood furan waa iyada oo ah maxaan u baahannahay inaan sameyno dadka deegaanka joogaana maxaan ku wacyigelin karnaa iyagana ayaa loo baahay that's marka ma aha shaqada environmentalka ma aha mid madaxweynaha u taala ma aha laakiin madaxweynaha waxaa la rabaa wasaaradda la shaqaysaa madaxweynaha waxaa la rabaa advisorka madaxweynaha u dhow oo ah haddii madaxweynaha uu barnaamijkan ku dhawaaqay advisoradiisi iyo xafiiska madaxweynaha waxay yihiin hadalka madaxweynaha uu sameeyey oo environmentalka uu ka hadlay in dhir la abuuro maxaa ka hirgalay iyaga marka waxaa la rabaa in madaxweynaha ay update siiyaan meeshan waa laga gaabiyey oo hawsha aa sheegtay ma jirto madaxweynaha marka waxay yihiin tiimkaas oo advisorada u ah hadal walba madaxweynaha uu ballan qaaday inay ayaga qoraan ayna madaxweynaha ku xasuuq madaxweynaha waa qof bini'aadam ayuu yahay oo ah wixii uu hilmaami karaa uu yiraahdo tusaale yar aan ku siinaya ninka la yiraahdo Singapore prime ministerkii hore oo waddanka dhisay ninka la yiraahdo Lee Kuan Yew ayaa wuxuu lahaa 3 wariyaal ayuu lahaa oo ah markuu baxo oo meel ka khudbeeyo wuxuu sameyn jiray wariyaashu waxay sameyn jireen waxay aruurin jireen information oo madaxweynaha bartaas hatta si oo emotional hadduu u yiraahdo way qori jireen
si ay dadka u arkeen inuu yahay madaxweyne prime minister inuu yahay shakhsi oo aan beenaale uusan ahayn marka maalintii habeenkii waxay tagayaan khudbadiisa dib u dhageysanayaan waxay ka dhex raadinayaan one area oo balan qaaday accidentally ama si emotional u balan qaaday inay record gareeyaan tomorrow hadalkaas marka madaxweynaha leeyahay maalin dhaweyd hadalka meeshaas waxaas ka tiri waxaas ayaa balan qaaday wixii marka ayuu qabanayaan then waxaa dhacday madaxweynihii South Korea ayaa wuxuu ku yiri niyo how come it raati 6 sano ayaa wadanka joogtaa oo dadkaaga mar walba doorashada aday ku doortaan markaas wuxuu yiri weligayga bulshada ah xukuma hal maalin hataa oo hal eri oo been uma sheegin marka waxay ugu doortaan inaan been u sheegin ayay ugu doortaan ayuu macnaha wixii balan qaado ayuu fuliyaa everything uu balan qaado laakiin ma aha madaxweynuhu prime minister uu hilmaami lahaa laakiin already waxa u diyaarsan team oo ah oo wax walba u qoray waxa uu balan qaaday ee madaxweynaha kula tagaan ee xasuusiya kadib wixii waa loo sameeyaa ay fahamsan marka madaxweynaha marka waxa waaye teamkiisi iyo xafiiskiisi ayaa la rabaa in ayaga sameeyaan hadalkan 10 milyan madaxweynaha already hadda hal sano sii socoto 3 sano ka bacdi waxa lagu gaaraa anada doorasho kala imaanayso 10 milyan oo dad madaxweynaha uu sheegay meeqaan ka hirgashay hirgashay 10 milyan hadda tusaale hadda maalin Tanzania ka imaaday Tanzania markaan tagay waxaan arkay waxay sii marayeen 66 milyan oo geed ayay sii marayeen Uganda sidoo kale almost 44 milyan geed ayaan ku ogaa Ethiopia na ujeeda iyadoo dagaal ku jirta ayaa waxay gaarsiiyeen 200 oo milyan oo geed ay dalka Ethiopia ay abuurtay lamadii dagaal ku jirna yaan geed la abuurin maysan at the same time 200 oo milyan geed ayaa u rekoordisan in ay xireen way fahamsan laakiin ma moodaa laakiin dawladdu madaxweynaha kale into ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada doortay golaha wasiirada shaqadooda qaar way gabeen sida environment-ga oo kaleento beeraha oo kaleento anaga inta badan waxaan jagooyinka aan u malaynaa inay yihiin kuwa aan ku shaqo tagno kale wasiirka maaliyadda oo kaleento ka waxbarashada oo kaleento waxaan macnaha meelahaas leenahay waxbaa ku jira oo waa ka dafi kartaa camal kuwaas xooga saarnaa laakiin hadda environment-ga oo kaleento weligaa ma aragtay wasiir Soomaaliya oo dhahayo intaasoo geedaan rabnaa inaan talaano hadda madaxweynuhu uu sheegay uu ogyahay qofkii loo yeeray oo magacan la siiyey oo wasaaradda la siiyey asiga waa in ka beeraha oo kaleento marka ma moodaa marka in isla xisaabtan la'aan oo ka jiro dhanka wasiirada noocaas oo kale maya horta wasiirada gol wasiiraad jiraan oo prime minister ay leeyihiin isaga waxaa laga rabaa ninkaan shaqada aan qabanin ninka aan shaqadiis ka soo bixin ninka howlihii loo diray oo projectida Orion aan qaban isaga laga rabaa inuu la xisaabtamo isagana waxaa la rabaa in uu meeshaan isaga wuxuu yahay kaab galas u ah maadaama ay u tahay prime minister u tahay adaa laga rabaa dadka xisaabtooda ayaa laga rabaa mid kale u laaban hadda waxaan sheegay environment-ga iyo beeraha waa hay'adda ugu muhiimsan dowladnimada dalka ayay tahay laakiin dhankan waxaa moodaa mid ugu raqiisan Soomaalida waxaa jirta maamul oo ah waabariya maamulada ka mid ah oo haddana dhulka uga barwaaqsan GDP-ga Soomaaliya 35 halkii la rabo inay ka imaadaan ayaa jira wayba ka faanaa maamul ninka la siiyo wasiirka beeraha wax isla taqaanaa hay'adda Ewral idiyo anaga wasaaradaha Soomaaliya ku xisaabtanto wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga intaasaan macnaha anaga xooga saarnaa laakiin wasiir hadda ka soo qaada hadii la yidhaahdo maanta oo kale ninkii qoryoole ahaa waxaa loo magacaabo wasaaradda beeraha familka meesha dambe xanaaqaysaa anaga kuma qanacsaneyn haddaa fiirisid markii marka meesha isla xisaabtan la'aanta ka imaatay meelaas waa wasaaro la yeeso fiiri horta isla xisaabtan la'aan ma aha niyo horta qof walba wuxuu gabaa mas'uuliyadda loo dhibayo mas'uuliyadda haddaa fiirisa markii hadda Mareykanka la dhisay 2 nin ayaa Mareykanka dhisay oo ah marka dambe madaxweynuhu noqday wuxuu ahaa beeraley ayuu ahaa ninna wuxuu ahaa waxaa la dhahayaa Alex Hamilton wuxuu ahaa ganacsiga iyo warshadaha so beeraha waa meesha keli oo qofka bilaadanka wuxuu cuno wuxuu xirto waxay ka imaadaan beeraha ka imaadaan inta tan u gudagal waxa dhacday maran Hargeysa aan tagay
meel beer laga sameynayo marka shaqo ma jirto makiinadii oo lasoo ijaaraya meel iska taalaa oo ninka makiinada iskale shaqo la-aan hayso darawalkii makiinada wada lahana shaqo la-aan hayso then waxaa dhacday makiinada la rabay marka in la ijaarto oo nin rabo inuu beer samaysto uu caragadisada ayuu rabay uu geed qaato dowladdu waxay tiri makiinadan lama qaadayo ilaa aad bixisid $200 waa sharci loo samaysto waay marka ay lukarit markaa fiirisid waxaa is leedahay dis halis waxay ku tahay marka dalkay ku tahay ninkii la rabay inuu dadka quudiyo markaa road block loo dhigo way fahansama marka meel laga gudbayo malaha lama tartami karno wadamada hadda sida Ethiopia kale iyo Kenya kale loolama tartami karo oo waxaa kula tartami karo waxaa dowladda ayaa maalgelinaysa kasoko ayu agabka beeraha uu dalka imaado canshuur la-aan ku galaan canshuur lagama qaado wax walba ku saabsan beera oo production ah free ku galaan wadamada annaga haddaa dhahdo wax walba oo beera haddaa wadankan geenaya haddaa dhahdid waxaa laga rabaa canshuura laga rabaa marka waxay halis ku tahay marka insan dadka ama dowladda nidaamka dowladnimada ama maamulada ay fahmi kara waxay tahay ninka waxyaabaha loo baahan yahay hadda markaan Tanzania ka imaaday dadka beeraleyda Tanzania sida loo ilaaliyay waa yaawisa wallahi waa la dhageystaa haddii ay banaan baxana halis waay sababta waxaa waaye waxay ka mid yihiin dadka shaqada adag haayo oo bulshadan quudinaya ayay ka mid yihiin sida wadankan dadka la ixtiraamo wadankan waa beeraleyda even wadankan beeraleyda dadka ah iyo dadka baabuurka caadiga wataan iyo beeraleyda isku shidaal ma isticmaalaan dadka caadiga shidaal gooni isticmaalaan beeraleyda waxay isticmaalaan red diesel oo shidaal guduudan oo very cheap ayay isticmaalaan oo lagu talagalay inuusan qofkan dareemin culayska shidaalka uusan dareemin marka hay'adda beeraha waa midda keli ugu muhiimsan wadan walba ay waxay u tahay maxaa la yiraahdaa backbone laf dhabarka ay u tahay Soomaaliya waxay leedahay udub dhaxal ayay u tahay oo ah waa meesha keli haddii uu wax la soo saaray oo qof walba shaqo ka helayo meeshaas ay tahay hadda tusaale yar ku siinaya let's say waxaan haystaa 15,000 geed moos haystaa meeqa qofood ayaan shaqo u qoray marka mooskaas aan qoray all the way to macalinka iskuulka dhigaayo wuxuu helaya lacag uu helaya because of ninkaas oo beerta joogo daraadiis is mechanismka oo dhaqaalaha markaa fiirisa ama economical hadaa fiirisa from ninkaas 30,000 ama 15,000 moos abuurtay shaqaalahu isaga oo u shaqeeya mishaarka uu siinayo all the way to macalinka iskuulka dhigaayo ayuu ka mid noqonayo ay fantawana sababta waxaa waaye shaqaalaha uu siiyo mishaarka uu siiyo iskuul in wax u dhigtaa ninka miis ha macalinkana muxuu qaadanaya mishaar uu qaadanaya weedaas mishaarkaas marka noloshiisa sax socota marka that's the mechanism ay dhaqaalaha wareegsayay so waa ninka beeraleyda waa ninka wax rabo inay dadkan ay all rabo inay ila laakiin maanta hay'adda ma shaqeyso 70% wadanka dhalinyarada wasaaradihina waa la yasaab wasaaradii waa la iska yaasa budgetka ugu yar wasaaradda beeraha waxaan waay 1 milyan ayaan ku ogaa maarino hadda ma ogi budgetkan 2020 la marsi ma arkin marka 1 milyan ayay qaadataa then at the same time waxaa waayay okay meelo badan waxaa jira wadanka waxaan dhihi karnaa caqabadaha jiraan oo beerihii isbaarooyinka waxa hadda maalin nin cadaan oo article oo qoray ana akhrinayo oo Soomaali ka hadlayay Somali fruit oo ka hadlayay maxaa la yiraahdaa fruitka oo Soomaali mar oo ka hadlayay wuxuu ku soo qaatay article-kaas in ay ahaayeen waxyaabaha beeraha Soomaaliya burburiyeen isbaarada ah taas nin cadaan article-kaas qoray so maanta waxaan ogaanaynaa aan fahmayno waxyaabaha beeraheena burburinaayaba inuu kow uu ka yahay isbaarada jidka la dhigtay inuu ka yahay ay fantawnaa فقط marka aan dib ugu soo noqonaynaa barnaamijka mashruuca madaxweynaha uu ku dhawaaqay ilaa hadda cid isku taagtay jirin wasaaradda isxil saartay jirin hay'ado loo xisaaray jirin dad idka isku xilqaamay jirin waxaan la socdaa dhawaan adiga in barnaamijkaas mashruucaas adigoo ka duulaya hadalka madaxweynaha maadaama aqoonteeda aad leedahay inuu batan aad ahayd inaad hooshii bal adigoo wadankii adoo halkan joogo inaad wadankiina aad ka hirgelisay xarun
يعني horta imisa geedaha hadda ilaa hadda aad ku guulaysatay inaad soo aruuriso horta aniga geedo ma soo aruurinayno horta inaan halkaas kaa saxaaro anaga waxaan sameynayna geedahan abuurna geedaha abuuraysid ha geedahan abuurna ma geedaha inaan soo aruurno waa gartay marka anaga waxaan sameynaa geedaha abuurayna oo ah hadda maalin mar Tanzania joogaan waxaan Soomaaliya u dirayay 15,000 oo miro ah 15,000 oo miro ah waa abuur marka ma kala duwanaayeen mise hal way kala duwan yihiin sababta waxa waaye waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo laba u kala qaadayna oo ah midna waa nooca oo beeraleyda ayay tahay sababta waxa waaye bulshada Soomaaliyeed horta before inta sheekada aan gal waxaan rabaa bisha cagaaran waa barnaamij ay dadka Soomaalida ay leeyihiin waan arkaa dhowr jeer adigoo ka hadlaysa oo bisha cagaaran kulay anigu ma fahmin waxaan ila mid ahaa dad badan oo Soomaaliyeed oo ila mid badan ana adigu marka qoraaladaada iyo marka wax ka sheekeynayso waxaad rabaa bisha cagaaran ilaa bil cagaaran hada waa fahmi laana bal inoo had bartas inoo jilci aniga dadweynaha horta bisha cagaaran waa barnaamij ay Soomaalida leedahay ma aha mid aniga leeyahay ma aha أصلا شخصي أهان عبد الداير هان معها مش عجار ما برنامج الصومالي لا قبيل غريبة أو صومالي كجيران وارد سي وايح مقاولي organization وحي organization أقولي معها وعدت صوماليات هذا حد حسوس يدمع عليه سه وحكم من الهوين كبر كلاس هاي وافق لي أديات هرتوا برنامج الصومالي ذا إلى هو ما مداني باسنا شخصي أهان أنا ولا معها وواحد ربع إنه سيس صعد هدو إلى هيدنا وgeneration to generation إنه جهارو هدف كعلينا هيا واحد هاي إن هذا ميت قريس كديب بالشدة واحترنا ولا صوت حواي وحرمنا أي تهي كذا عرفنا إنا أورنا لبعض مكلا قادنا منه وحيد هاي بيرها واي أو dadka beeraleyda Soomaaliyeed inaan siino kalsooni inaan siino horta inaan fahanno carada aan leenahay horta intaan u gudbin miraha atlantisan bisha cagaaran maxay bisha cagaaran waa barnaamij oo dhireen iyo midna waa laba qayb waay midna waxaan ugu talagalnay cimilada aan ugu talagalnay oo geedaha cimilada midna waxaan ugu talagalnay anaga sameeynaha marka ma bil gooriyo sida abril bisha marka la gaaro ama march la gaaro karanta idii calaamaysan ma jiro sida bil kasta idii cagaaran maya waa bisha cagaaran waa means cagaar bisha iyo cagaar means waxaan ugu talagalnay oo ah in ay tahay waa maalinta la cagaarinayo ama cagaarka Soomaaliyeed لكن بالوحدة ما جبت بالوحدة ما جبت ما أنا بالهبل بس مركي لقى ما أنا هالكين أورينا مركي ما دام وضعك مدك جاب فربضان أو قلنا يدكنا جاب فربضان إيه قلنا قيانات جاب فربضان قلنا علماء إيه كساحتين هذاك بالكستو وسوي جدنا ووضعك العقارير أنا قلبي تمام كبلوت هدو إلهي وحنكوه لنا إن نجينا وحنكوه حساب تمنا هو إن نكفى إنه لبي تمام بيل يقرحنا mid kale waxay tahay boqolkii 51 qoraxda adduunka waxay ku dhacdaa Soomaaliya Afrika ku dhacdaa adduunka kale waxay share ku wadayeen 49 share hadaba kana maanta waxa aan banaanka u bixi karaa maanta qabow ma qabo -5 ku gaasay marka ka soo galeen wax kala ahayn yes pointiga marka ay tahay waa barnaamij ay Soomaalida dhan ay leedahay waa qabiilan ku jirina maanta aan ku socono marka wada dhan yahay aan ku socono marka inta geedo Tanzania ka dirtay marka laba qayb oo kala dhiganay oo ah qaybna waa qaybtan cimilada oo meelaha Soomaaliya waxay leedahay meelna waxa waaye waa dry ayaa la yiraahdaa oo ah way ka kulushahay dhinacan kale south way ka kulushahay marka waxaan rabnaa insha Allah geedo kale oo xaggaas ku bixi karaan ay ku adkeysan karaan cimilada u adkeysan karaan oo dhulkaas ay ku bixi karaan iyo geedo waxa jira dhinacan kale oo ah because dhulka ayaa wuxuu yahay oo kala sareeya meel waxa biyaha iska dhow oo geedku wuxuu awoodaa xididkiisa inuu already dhulka u gaaro oo qoyaan geed meel way ka fog tahay oo geedkan xididkiisa muddo dheer inuu sii socdo way si uu biyo dhulka ugu raadsado saasi geedaha ay normally environment-ka wuxuu yahay waxa laga yaabaa iska qalalo
yes marka waxaan ugu talagalnay qaybna waa qaybta environmentalka oo ah qayb waxaa jirta geedahan ugu talagalnay inuu bacaadka ku bixi karo haddana at the same time oo ah aan dhihi meeshaan bacaada waxba kama bixi karo oo waxaa kamid a geedo waxaa kamid a dhulka xeebeedka kamid ah waxaan ugu talagalnay in dhulka xeebeedka iyo geedahaas ay ku baxaan ayaan ugu talagalnay midda kale waxay tahay waa dhirta loogu talagalay beeraha loogu talagalay oo ah dadkan beeraleyda in aan siin karno kalsooni oo hadda qof walba Soomaali haddaan aad geed camba raba inaan abuurto wuxuu ku leeyahay geed camba ma 20 sano sugi kara aniga okay hadda barnaamijkan aad ka bilowday magaalada Muqdisho oo dhireenta ah oo waliba adigu aad ka bilowday in la abuuro la talaalo ma abuur ayaa ka bilaabaysaa inta qaadanayso inta ku soo kori doono gad walba adan oo sheegi doontid laakiin ujeedka kullee waxaa kugu dhaliyay adoo marka horeba ku taamayay hadalka madaxweynaha maya waan ka horeynay horta madaxweynaha laga hadda arkay maya madaxweynaha ka horeynay waxaa isku soo aaday isbuucii oo iyaga ku dhawaaqeen Soomaalida cagaarka ahaa iyo barnaamij aniga marka hore aan wadnay oo ahaa inaan dhireen samayno marka shughul isku malay iyagana dad gooni ay ahaayeen anigana dad gooni aan ahno ilaa haddana wax naga dhaxeeyo oo xiriir ay hay'adda dawladda naga dhaxaysa ma jirto normally Soomaali waxaan nahay oo isxilqaama ayaan nahay oo ah inaan dhirtaas sameeyno oo qof walba oo Soomaali maanta dhigi karo oo ah dad gooni aan loo fiiri karin ma qabiilan ku jirna ma laha inta badan Soomaali wixii la geeyo waa isku qabsadaa ka baqaysan in lagu qabsado intuu ka imaana qabsan hadda Soomaali wax walba la geeyo hadda wax walba Soomaali la geeyo wala sida lahada waa isku qabsadaa marka maadaama mashruuca dhireenta iyo bisha cagaaran iyo barnaamijkan ay wadaan ma laga yaabaa dadka lanto macnaha ma dayaxa cagaaran wada inay yimaadaan iyagana barnaamijka lanto oo okay ma horta fiiri horta soo loo baahan ku bedesho ma fiiri always qofka ama bilaadan waxay horumar ku gaaraan tartanka horumar lagu gaaraan صح waxyaha monopoly wuxuu burburiyaa dadka kalsoonidooda uu burburiyaa qofkana wax ma gaari karo haddana waxa aniga horta dad muslimiin oo ah adiga marba daa aaminsan inaad dhimanaysid always waxaa wanaagsan dhinaca wanaagsan ama positive ayaa la rabaa oo ah dhirtan waxay noqonaysaa maanta qof waliba oo Soomaali waxaa loo baahan yahay intay jiri lahaa hal bish cagaaran waxaa ka wanaagsan inay jirto 50,000 oo bish cagaaran كله أنا جي ضد بدن كداوانة وسنها أنا تين ضد عاد وعقل بدن وبرامج على ذي قبض دونين يا ضد بدن يسن حس ولا هين أنا أدوك حس إيدي له يا أنت كذا على طلعنا ده ترى يوم الأمور أنا دادون أنا ضد بدن عليك وجرا وكاسي جسد أنا مركا حوالي واحد بدن وسيد وإيش أو فجر دكتور بدكوا هاي سمعت بدن مركا وحنا رأينا ندب وصلنا قلنا برامج كنا كله واسكسي الدوي هاي وحرمني إن دادوينها أنا قبل إنه فايز geeda kala duwan miro kala duwan ayaa dalkii hadda aad geysay oo aad talaashay oo durba aan arkayno qaabka ay u soconayaan iyo sida loo diyaarinayo iyo goobta u diyaariseen iyo dhalinyarta aad diyaariseen inay ka shaqeeyaan iyo waan u jeednaa laakiin waxaan rabnaa inaan ka ogaano haddaan kolley cadadii mooda hay karto hadda buuggii kuma hor yaallo laakiin inta geed oo kala duwan ee hadda aad idin diyaarsan waxaan oo diyaarsan abuurteen adiga waxaan abuurnay geedo badan abuurnay saale kaaga soo qaato waxaa kamid ah timirta kamid ah timir badan ayaa abuuran oo insha Allah waxaan rabnaa inaan sii xoojinayaan rabnaa haddii Ilaahay idmo waxaa kamid ah geedaha timirta naqsan xataa inay dhasho wallahi sida caadiga markay tahay waxay qaadanaysaa roughly 4 ilaa 5 sano qaadan kartaa 4 ilaa 5 sano ay qaadan kartaa timirta waa laakiin hadda aqoontu way horumartay hadda waxaa la awoodaa timirta waa in la soo gaabiyo oo 2 sano inay ku dhasho ayaa la awoodaa wala baxramina bacrimis maaha waa nidaam oo laabti taylada miya oo inta ku arkay Yurub maya fiiri si dhawaatada jirta waxay tahay anaga hadda Soomaaliya ahaan dhibaatooyin badan iyo 30 sano kasoo waxaan dib u dhac xoog leh ayaa iska jira laakiin aqoonta hadda way horumartay oo ah hadaalid waxaan ku dhahay qofka Soomaaliga marka la geeda raba inaa abuuro ama camba raba inaa abuuro wuxuu ku leeyahay 20 sano ayuu qaadanayaa geedka cambaha dhalo xilligaas ma joogo aniga way fahamsan laakiin ma aha 20 sano inuu geedkan qaadanayo ma aha laakiin waxaa la awoodaa geedkan oo hadda halkii 20 sano ugu qaadanayo hal sano iyo bar ilaa 2 sano inuu geedku dhalo ayaa hadda la awoodaa waa gartay waxaad
waxaad ii sheegtay inay ka mid tahay timirta ku soco inta geed inta ka gaar timirta waa ka mid yahay waxaa ka mid ah avocado ka mid ah afkaada inta aniga Soomaali joogay iyadoo la talaana iyo la abuura ma arkay kale waa ka dambeysay way ka dambeysay ma la tijaabin wadanka ay ku baxayso hadda fiirsa beledweyne yaraa wuxuu ku leeyahay laba geed ku leeyahay maadaay sidoo kale kama badna laba geed oo kale dhinacan kale balcad meeshaas waxaan u jeeday hal geed min kula u jeeday dhinacan afgo yaraa hal geed isna sidoo kale ku abuuray marka wax shidaal ugu markin way baxayaan ma ku dhashay والله markay caadiga tahay waxay qaadan kartaa from 5 sano 6 sano 7 sano ay iska qaadan kartaa laakiin hadda waxa laga dhigaa 1 sano bar 2 sano inay ku dhasho waqti marka timirtii iyo avocado-dii moringaha kamid ah oo 3500 hadda kor u sii dhaafna u maleeyaa moringaha Soomaali hore uma jirin hadda u jiray oo hal meelahaas geedo xamro dad badan aan fahansaneen moringaha faa'iidadu leeyahay may waxay kamid yihiin waxyaabaha oo dhirtan oo caafimaad ahaan loo cuno ay hadda kamid yihiin timirtii moringaha gobka kamid ah geedkii gobka hore u jiray way gobka kamid ah guriga alleen oo ka bixi jiray waxaa kamid ah geedaha hadda sida oo loo yaqaano geed hindi aan dhahno ama geed talaalka la yiraahdo ayaa kamid ah waxaa kamid ah inta xasuuna waa listiga ma hay waxaa kamid ah avocado waa sheegay waxaa kamid ah geedaha dheerka oo saaqa camal ah shawriga guriga ka bixi jiray haddaa fiiriso tusaale xeer waxaa jirto dhinacan cadala markaa tagto dhowr geeda ku taalo oo xilligii dowladii gacanta meelahaas uu ku abuuray ma badan marka intii oo lagu abuuray bes la ku abuuray laakiin aad u qurux badan tahay markii la arko yes laakiin ma badno marka u dhahay marka waxaan hadda sameynay oo yara saaxiib nahnay iyo maamo kale oo iyadan sidoo kale Holland joogto ayaa waxay iga caawiyeen min jawaanay waxay iga soo direen cadala iga soo direen jawaankaas still marka waxaan aan ku hoolanahay inaan badino hadduu ilaahay moo aan dhulkaas haddana iyaga aan u celino meeshii hadda geedihii hore bis ay ku yaaleen inaan gaarsiin karno 5,000-10,000 oo shawrigaas inaan iyaga ugu celin karno kabacdi dadka reer cadala iyo madaxdooda iyo maamulkooda halkaas joogaan in iyaga mas-uuliyad iska saaraan ee ilaalsadaan ayaa la rabaa waxaan ku weydiiyey marka mirahan aad ku abuurteen hadda meeshaan Muqdisho ka diyaariseen mirahaas markay soo baxaan kullee meel baa lagu talaali doonaa geed soo geeda saasaranaha dhul kastoo Soomaaliya wuu ka baxayaa mise way kala leeyihiin oo qaaraan ku bixin gobolada qaar ka bixin may shawriga iyo mahad geedahan shawriga kale qumbaha kale waxay yihiin ama timirta kale halkaas taga baxan meel walba ka bixin dhul bacaad iyo bacaad dar biyo mu baahan yahay yes biyo u baahan yahay laakiin markay xeebaha ay ku abuuran yihiin qumbaha kale ilaahay wuxuu siiyay awood oo ah biyaha cusbada inay u badashtaan biyo macaan u badashtaan masha Allah qumbaha waay badan waa aragtay dhulka xeebadka lagu qurxiyaa waa xeebaha kali oo maanta adduunka aan lahayn geedaha waa xeebaha Soomaaliya 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 ana Mombasa kale kullee waan ku arkay Mombasa waa aragtay Bambur Beach marka laakiin adduunka kale marka hadalkan u soo laabano hadda wadankan aan joogno marka aan wareegtay xeebada hadda wareegto aragtay qaarna geedayn qaarna ma laha marka waxa la sameeyay meelihii geedo lahaay bacaadkii oo ahaa bacaadka waxa laga kormariyay dhagaxyaal lagu daadiyay si uu dabeesha markay u maanaysan bacaadka u qaadan ee xaafadaas u keenay marka hadda wadankan aad joogno maqlaysa bacaada dadkaas wareegay maqlay qof oo u soo jeesay in dhulkii dhan ay ugu dambeyntii waxaan rabaa marka inaan hadalka soo gaabino mirahan aad talaasheen qaab noocee ah ayaad rabtaan inaad dadkii iyo dalkii aad ugu faa'iidaysaan oo waxaad doonaysaan inaad dadkii aad ku sadaqaysaan waxaad doonaysaan inaad iibisaan waxaad doonaysaan inaad dawladdii aad u soo bandhigtaan qaab noocee ugu tala gashay barnaamijkan nin horta waxaan ugu talagalnay oo ahaa dalka horta ma lahayn center meel oo center oo lagu diyaariyo dhir ma lahayn waxaa ugu dambeysay dawladdii hore ugu dambeysay taas waa hadda aniga waxaan rabnay at least inaan gundhigno meel oo center oo dhir waliba oo dalka u baahan yahay laga heli karo oo meeshaas laga qaadi karo haddaan dhahno kuwa waxaan ugu talagalay inaan dadka siino oo environmentalka ahaan oo ah of course anigana waxaan u baahanahay caawitaan u baahanahay oo meesha waxaa waaye rent ayaa ku socda bacyada waxaa waaye lacag waaye waardiyaha lacag waaye shaqadaas dhan lacag ay garaysaa marka
markii hore dadka waxaan usoo bandhigin oo ah qof waliba wuxuu awood hadduu noogu caabiyo waxaan u xaqiijin doonaa hadduu ilaah idmo in anaga aan camera dhalino oo dhirtii aan abuurno kumigayn aana siisaan wuxuu galayaa dalka ayuu galayaa oo wuxuu galayaa bacday oo geedaha lagu abuuraya lacag ay tahay wuxuu galayaa meesha aan karaysana lacag waaye oo dowladda nama siinin meel la yiraahdo dan guud ahaan u shaqeyna biyihii lacag waaye waardiyihii lacag waaye dhalinyarta meesha ka shaqeynaysa aan xoogooda isticmaalayna marka then aniga maaha dowladda kuma tiirsano oo ma raadsanin sababtoo dhibaatada jirta waxay tahay haddaa rabtid inaan qofka maamulka ama dowladda aad rabtid inaad gaartidna waxaa waaye so many checkpoints ka soo horeeyaan marka waxyaabaha dadka dilaya moralka u dilaya ama inuu qofka give up uu sameeyo waxay check up-yadan oo road blog oo qof walba rabo ayaa meesha hor taagan laakiin qofkii markay toos ninka hogaankana marka wuxuusan kala garan karin qofka saxda ay qofka saxda ah helina marka toos waxaad ula macaamilaysaan shacabka marka pointigeena marka waxay tahay dadka toos oo shacbiga oo rabo waxaan soo maaha in aan ka gun gaarno oo ah dhalinyaro wax baratay oo aqoon-yahano ama wixii shaqada ay wadaan ee faham u leeyihiin oo hooshii hayaan mala xiriirtaan dhanka kaleeto macallimiinta iskuullada jaamacadaha mala xiriirteen ayintooda waxa waaye maadaama ay caruur badan dhalinyaro fara badan dhankaas ay baranayaan dhibaatada jirta waxaa waayay horta waa inay horta awareness ay jirtaa wacyigelin horta waa inay jirtaa inuu qofka fahmo okay waxaan rabaa xoogay macallimiinta xishaalo wiiltimo meelahaas weli kumaan samayn approach ama umaan tegin laakiin waxaan rabnaa marka hore in wixii oo istaagay dhirtii oo kortay markii la arko kabacdi inaan samayn karno awareness oo samayn karno iskuullada wareegi karno meelihii jaamacadaha aan wareegi karno meelihii doodaha aan ka qayb gali karno in aan usoo bandhigno adeegkiina qolooyinkiina bisha cagaaran ee doonaya inay wax cagaarisaan oo kaleento oo dadkiina inay fahamsaneen aad tustaan ma habboon tahay mararka qaar inaad sanadkiiba 3 maalin aad qorshaysaan inaad bandhig aad samaysaan oo soo bandhigtaan oo idaacadaha iyo telefishinada dadka waxa galka iyo dowladda iyo macallimiinta iyo ardayda jaamacadaha intaad casuuntaan aad soo bandhigtaan yes waan rabnaa okay hadda waxaan ku yiri laba qayb qaybna waxa waa beeraha waa qaybna environmental way mid aan rabno inaan soo bandhigno waxay tahay dadka beeralayda oo kale ama dhalinyarada jecel inay wax beertaan ama inay wax abuurtaan in aan siino kalsooni oo ah in geedkii aa u malayn jirtay 20 sano lagaaga dhadhacsiiyo ama wabiga jiinkiisu bisu ka baxaa sida cabo oo kale in hadda laga gudbo oo ah isagoo practically oo geedkii oo diyaarsan inaan dadka usoo bandhigi karna ay tahay this is hawsha aan rabna inaan qabano waxay tahay practicalkiisa waa kana then aniga waxaan diyaar u nahay qofka Soomaaliga ama qofka dhalinyarada raba in wax abuurto oo ah inuu fahmi karo horta carrada maxay tahay sida carrada ay u kala baxaan carrada u baahan in la bacrimiyo carrada nafaqada u baahan midda oo nafaqada ku badan tahay in waxaan oo dhan dhalinyarada aan siin karno sababtoo waxa way hadaa fiirisid digada doorada waxay isma laha digada ariga isma laha waxay ku kala duwanaan karnaa ayada nitrogen ku kala duwanaan karaan sulfurka ku kala duwanaan karaan phosphorus ku kala duwanaan karaan waxyaabahaas oo marka qofka inuu fahmi karo oo ah digadan ariga digada lo'da way kala duwan hadan lo'daasi kala baxaysa lo'da loo design garay inay tahay lo'da hilibka digadeeda iyo lo'da caadiga oo caanaha laga liso oo dairy oo cattle loo yaqaan way kala duwan tahay hadana mid baa waxa laga yaabaa inuu ku badan tahay nitrogen mid inay ku yartay sulfurka marka this waxay tahay in aqoontan in dhalinyaradaas loo soo gudbin karo ay fahmi karaan then qofkan inuu kalsooni heli karo uu hadhowda isaga inuu meel xarxaaran karo uu abuuran karo uu shaqo ku heli karo intuu gurigiisa iska fadhiyo ama hooyadiisa raashinka la cuni lahaa inuu xoogan dhumaayo oo sababta waxaa waaye xooga dhalinyarada waqti baa lagu faa'iideystaa haddii waqtiga loogu talagalay aan ka faa'iideysan weyna then waxay noqonaysaa wiilkan oo weynaada xoogiisa laga faa'iideysan isagana wuxuu usii gudbinayaa waalidkiisa usii gudbinayaa ilmaha uu dhalay ayuu usii gudbinayaa marka cyclekan oo ah faqriga wuxuu noqonayaa cycle aan ka bixi karin ay noqonayso qor isku diis ayay noqonaysaa marka ugu dambeyntii nabad guurka sida macnaha maartay bacaad celinta ugu dambeyntii waxaad sheegtay in dalka qaybo ka mid ah ay bacaadka ay korayaan oo meeshaas oo nabad guur oo bacaadkaas uu sameynayo dhanka kalentana xaalufinta dhirtii ayna ay waddanka ay xaalufinayso labadaasi dadka waxaad ka gabaanin lahayd
inay wadanka ay waxaas labadoodu ay halis ku yihiin maxaa jeclaan dadka inaad soo bandhigto kaga hadasho horta maya labada halis way ku wada yihiin kan geedka jaraayo ko dad badan ayaana fahansaneen inuu bacaadka naftarkiisa oo nabad gurya nabad guur waaye nabad guurka wuxuu ka imaaday dhulka horta waa banaan hadda bis leedahay hiiraan waa la dhahay hiiraan dhinacaas iyo waxaa laga yaabaa moqoqori oo kale hadda kasoo qaada tusaale leh waaye in uu moqoqori bacaadka wareer ku yahay macquul waxaa dhici karta nawaaxiga moqoqori oo dhan waa tusaale leh kusoo qaadan waa ereyga aan sheegayo waxaa laga yaabaa dhulkaas oo dhan markii magaalada ka baxdo waxa ku hareersan halgad inuusan lahayn haddana uusan beero lahayn marka waxaa naga khaldan ani ahaantay fahamkayga aan ay tahay waxa waaye nawaa hadda tusaale yar waxaa la yidhaha hypothetical means waxa waaye waan iska dhayaa tusaale ahaan aan rabaa inaan sheego now nawaaxiga moqoqori markaa fiiri sidoo kale hadda outside banaanka u baxday waxaa laga yaabaa 150 kilometer inaad socotid oo halgeed aad arkin afan now even xataa dhaqaale ahaan fikir ahaan 150 kilometer aad sii socotid only bes cycle haddaan ku abuurno waxaa la bedeli karaa the entire magaalada entire magaalada moqoqori oo dhan waxay helayaan shaqana way helayaan production way noqonayaan only cyclekaas marka wuxuu noqonayaa 3 to 4 years ayay dadkaas guranayaan inay warshad u samaystaan hooyada waxay awoodaysaa inay dambiil tosho inay dariin tosho waaw loo shaqooyinkii waagii hore dadka qaban jireen ayay tahay marka cyclekaas hadda fiiri wadamo badan way dhowfiyaan hadda Tanzania way dhowsa laakiin annaga dhibaatadan haystaa waxay tahay wax naga haystaa waxay tahay faham darida oo ah in xoogga iyo dhulka sida loogu faa'iideysto ayay dadka Soomaalida weli to waxyaabaha Tanzania waa tagay Uganda waa tagay Kenya waa joogada waxyaabaha aan ku arkay waxaa kamid ah inta badan waa green yes iskama noqon green yes outside green magaalada markaa dhex socdo meelaha qaar waa green marka waxaas waa wax laga shaqeeyo laakiin ogow waxaa inta badan xoogga saaraya waxaa waaye in dawladda no only dawlad kelima shacbiga dhan ayaa waxaan gabnay mas'uuliyadeena ku fashay ama imaam mashaajid ha noqdo ama mid kale aqooyahan ha noqdo ama dawlad ha noqdo ama madax ha noqdo waa collective anaga dhan waxaan nahay ummad fashilantay ina fahno ayay tahay marka mas'uuliyadda waa lagu wada leeyahay anaga dhan doon waxaan wada saaranay oo rabta doontaas inay degto aadiya qorali aad baad mahadsan tahay kulley barnaamijkan insha Allah haduu leeyahay dadweynahan reaction-koodana waan arki doonaa kulley waa mid waxyaabo ka mid ah inuu dalkii uu yahay waxyaabo aan doonayno inaan kaga hortagno inuu ku yimaado qaab darro uu ku yimaado dalkii uu naga burburo dhalinyartii iyo dadkii kana aan doonayna macnaha inaan u sameyno shaqo abuur u sameyno dadka dalxiisayaasha hata naftirkooda taa waxay u baahan yihiin meel cagaara markay arkaan iyo meel absolutely pointigaas ka socda hadda xamar gudaheeda okay waxaa jirta magaalooyin oo ku hareersan ama warshaqa dhaho tusaale warshaqa badda warshaqada hal geed male now baddaas markii geedo lagu abuuro waxaa isbedelayso bilicda meeshaas ay isbedelayso dad badan marka magaalada xamar waxay leeyihiin maanta jumcay tahay waxaan dalxiis u tagaynaa meeshaas u tagaynaa meesha way qurxoontahay just geedahaas meesha lagu abuuray waxay wax ka bedelayaan dhaqaalaha magaalada warshaqa ay waxaad xasuusanaysaa ayaan dhaweyto waxaa jiray challenge fara badan oo waxaa jiray labada gees xamar ay ka jiray sida daynil oo kaleento oo dadka ay baxayeen ay tagayeen ay dadka isku sawirayeen oo dhul maartay meel cagaar ay tagayeen qudaarta la isugu keenayay fanka hataa lagu qabanaya dhalinyarta iyo dalxiis u aadayeen si lamida ayaa xaafad cusub oo in la sameeyo la yiraahdo kaxda la yiraahdo oo jaziira eedeeda kulley laga sameeyay gadaasheen laga sameeyay iyadana kulley waxay soo bandhigaysaa waxyaabo marka aniga waxaan u arkay wax wanaagsan ay tahay maya qurux baan tahay tusaale marka dhulka xeebeedka la qurxiyo ama geedo lagu abuuro magaaladaas ku dhagan waxay helaysaa dhaqaalaha magaalada waa isbedelayaan sababta waxaa marka aniga hadda jamca inta ka baxna magaaladaas aan tago waxaan u baahnaa meel biyo ka gadano meel ka qadina u baahnaanayna so that means dadkeeni oo halkaas u tagay waxaana soo jiida baddaas la qurxiyay geedaha la qurxiyay inaan waqti kusoo qaadano nawaaxiga badda marka oo meelaha geedaha lagu abuuro dada imaanaya businesskooda keenaya dhaqaaladooda ku iibsanaya marka waxaa isbedelayo dhaqaalaha magaaladaas ayaa isbedela marka dhalinyarada meelaha maamulada haystaan kasoo waxay tahay iyaga naftigooda waxay u baahan yihiin horta in fahamkan dowladnimada ama qoridda dowladnimada magaalada waxay yidhahdaan ama english lagu yidhahdo crafting
oo state la qorayo ama dowladnimada la qorayo in dhalinyaradan oo la fahansiiyo oo ah war meesha aad joogto haddaan qurxisid waxaa wax ka bedeshay canshuurta maanta helaysid ama canshuurta maanta aruurinaysid canshuur ka badana magaalada imaanayso marka كل دبعات جرتها حتى أنا قوضنا وحنا لنا هاي نختار كي لو مجعبة المالية ده كي أنا مرتي أكاونت تي البرتين لو مجعبة وسارد إحنا نضح حولها كي إحنا نضح حولها يغيرنا لو مجعل وزير كريمها جدا مركا وضنا حاجة لو معناها مرتي وش غير هذا صعب يصير ما دم على غرفة محكم ويمسنا غرفة ماشي أما واحد ضد أحاول ضد إيه هلا واحد ما وأوي حاجة هذا صعد وشكينيسد وجلاء وشكينيسد واعتقد وشكينيسد environment وشكينيسد واحد وباي وشكينيسد جيت كنتوا صباحا وبين إن عمري جيس اللي صوت الدجكر وخضالي كرر صوت وحلاقي أما نك وزير كأمة عامة إنه أنت فهمتني مامت of course ودعك واحد عكر المال صومالي وريلي هذا ما صدقني كان بعد على وقتك غالي إن شاء الله دلنا هذا برامج كرنتو وقصة بسان environment إن شاء الله دلنا واسي وضع دونا يعني وحنرجعنا دلوينه هنا إن مالها أي أبهيهن أي موجيهن إن كل ضد بدنا حمانا بكبرشة داوان إن وزارة لوكل عرضنا إن غضنا معناها مرتي was one of the best environment تيجي ما عندنا مركان عن تنزانيا تيجي واحد تيجي وزارة بيرها تنزانيا يعني تيجي ضل واحد مسمينا مركان and you can see وزفيري وزارة بيرها وإن لا قاب كامل on research علم باريس marka cilmi baaris waxay ku haayeen geedka qumbaha ku haayeen anaga qumbaha nooca u naqaan laakiin qumbaha wuxuu kala baxay 15 nooc uu kala baxaa way fahansan marka anaga kiko wada laana anaga ma wada qaanabo ma wada qaanan kii qumbaha Soomaaliya nooc yahay saad jeclaan ma arko saas ma ka taqaan marka tagay kay walaasta design tago horanka jibrina tubada surayna horanka surayna marka hadda geedka qumbihii 8 sano qaalina hadda 2 sano laga ولله أنا ما صارت أنا كذا محبنا وقتي غالي إن شاء الله هذيك نداود الأدبان وما هستين سيد ونحسنا برامج كل ساعتين إن شاء الله هدول هذا برامج هذا نوع أنا وبدين دورنا هدول هذا سي بشدة إن وبرارجنا إن وطن كي وبهاي هاي وحيابها عن سلنا هاي يعني مهمة يوتها صوتها هل جد أو تلاشوا وحول لمدي هاي هذيك وطن كا نبنا بتبايس سيد معناها ما تقول شيء بركساس أوجد إن قفل بوبرتي إن dhankaasi geedaha iyo jaamacadaha hadda ku jiro rabo inuu barto rabo waan ku dhiirigelinayaa hadduu ilaahay yiraahdo inuu aqoontaasi uu xoojiyo insha Allah waqti waxa imaan doono aad noqon doonto qofka ugu shaqada badan wadanka hadduu ilaahay yiraahdo imaan doonto dadweynaha waxaan ka codsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxay ra'yi ay hayaan noo soo gudbiyaan guud ahaan daawadayaal barnaamijkan waxaan jeclaan lahaa xilligaani intaas aynan ku soo gabagabayno sidaas iyo nabadgelyo ayaan leenahay anagu isku duwan aniga halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan